waxaa ka baxo oo kale rumaantii iyo midho kale oo aad u fara badan oo hadda gacanta lagu hayo beertu waxa ay leedahay mid baaxad aad u weyn waxaana mar walba u heeganaa amaba u diyaaraa shaqaale aad u jajaban badan oo loo carbiyey khayraadka gobolka Sool looma soo koobi karo balse yeelkeeda inta muhiimadda ayaa waxay tahay in dhulku uu leeyahay khayraad fara badan marka dayactir lagu sameeyo ama si aada looga shaqeeyo geedkan arkaysan waxa weeye rumaankii oo hadda meel dhalaya marka uu soo bislaanayo waa kaas raacayu yeesha kadib midhihii ayaa waxay noqonayaan kuwa aad u ballaadaa markuu yar yahay waa kan noocan ayuu noqdaa markana uu ka sii kobcay wuxuu tegayaa noocaas ayuu tegayaa kadib uu ka sii waaweynaanayaa aad ayaana loogu sii intifaacayaa iyadoo boqolkiiba boqol waxyaalo badan laga soo guuriyey ama marar badan la soo jaray ayna isticmaalaan gobolooyin ka mid ah gobolooyinka gobolka Sool u dhow oo nawaaxigeeda oo dhan marba mar ka dambaysa ayaa waxay tahay mid aad iyo aad looga sii carbiyo amaba looga sii shaqeeyo iyagoo ay joogaan shaqaale aad iyo aad loo carbiyey rumaanta ayaa waxay tahay midhaha ugu fiican ee loo isticmaalo daaweynta cudurrada iyadoo mararka qaarkood lagu sugo dhirta tan lagu isticmaalo waxyaalo ka dila cayayaanka si aanay ugu dhex dhalanin quraankeena uu sheegay rumaanta tan inay tahay mid daawo u ah dadka saytuunku markuu yar yahay waa marka uu yar yahay weyn markuu waaweynaadona noocaas ayuu soo bedelaa kadib wuxuu yeeshaa casaan iyo caddaan iyo madow waxyaalo kale nooca ayuu yeeshaa iyadoo saytuunku uu yahay nafaqada ugu wanaagsan ee qof kastoo bini'aadi ah u wanaagsan amaba ka baxda beerta tan oo runtii muddo aad iyo aad u badan u shaqaynaysay runtiina laga intifaacsaday lagana guro mararka qaarkood marka ay soo baxdo ama ay soo laato ay tahay mid aad iyo aad dadku ugu fogaan dib haweyn weyn ayaa lagu sameeyaa beeraha mararka qaarkood iyadoo mar walba mar ka dambeeya aanay ka caajisay shaqaalaha beeraha biyahana aad arkaysaan imaaxanaya waxaa ay ku yaaleen durdurka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood biyaha kan oo aan go'in oo iska soconaya Afrika gobolku aad iyo aad u intifaacsadaan ama beerahuba badanaa beeraha matooro waaweyn looma isticmaalo biyahan ayaa lagu waraabiyaa ku iyo jiilal iyo deyrba biyaha kan ayaa waxay yihiin il iska soo burqanaysa mar ka dambaysa ka sii badanaysa sidii hore ee ahayd biyahan ayaa waxay yihiin kuwa muhiim u ah gobolka iyo beerahaba waxaa la soo gaadhay beerta waqdari safarkeeni anagoo mar safar gaaban ku joognaa beerta waqdari oo ah beeraha ugu qaalisan ee gobolka Sool waxaa ka baxaa saytuun waxaa ka baxaa kaabashkii oo hadda bislaanaya oo aad arkaysaan calaamadiisa waxaa ka baxaa rumaantii waxaa ka baxa oo kale midho badan oo soo go'a waqtiyada ay beertu soo go'do beerta waqdari oo u dhow gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxa ay ka xigtaa dhinaca koonfurta 15 kiiloomitir tubada aad arkaysaan waxay u keentaa biyaha iyadoo ka soo qaada matoorka
beertu ay leedahay beerta waqdari ayaa waxay tahay mid aad iyo aad dadku ay ugu bulsooleen gobolka Sool iyadoo ay ka soo baxaan qudaarta ka soo baxda loo kala raro degmooyinka iyo gobolada u dhaxeeya degmooyinka iyo gobolada Soomaaliya ayaa waxay tahay mid aad looga intifaaco beeraha waqdari waxa inta u dheer in ay markaas dambaysa loo cadbiyo shaqaale kala duwan oo ka shaqeeya sidii ay horumar weyn u gaarsiin lahaayeen beerta